قدومية اعتراف رادين تيسورين محمد يوسف قدومية كحجين كضلة جود إيا دمان با قدومية شلامها إيا قربية إيا قبل كنسكوني مرت شرفك كسر غيب قلي إيا مرتدين وقت مدين مارك إيا جودها بتشالية دمالمو دمانتي با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب دانو مقالة دقنا هاي قدومية شالية دانا هاي marka xisbiga kulmiye waan ahay laakiin xisbi kasta anigu waan soo dhaweeyaa saddexda xisbi qaran baa waan u martisooraa markay magaalada igu yimaadaan isku si baan u soo dhaweeyaa waana wax loo baahan yahay dalku inuu xisbiye yeesho sababtahay waa ogtihiin oo caalamka xisbi qori ka taliyo waa ogtihiin dhibaatooyinka ka taagan marka mid kastaba maadaama halkan uu fadhiyo maanta xisbi xaakimkii TV-ga qarankuna joogo waxaan mar walba ka codsanayaa in ay xisbi xaakimku oo aad iyo aad u qadariyo u soo dhaweeyo xisbiyada mucaaradka ah inay aqbalaan iyaguna inuu xisbigiisa yahay xisbi xaakimkii oo isagu markaa maamulka hayo inta haddii aan ka gudbo in yar ayaan magaalada Maalmo idinka warramaya iyo jaaliyada Maalmo magaaladan Maalmo runtii magaalo weeyaan ku taala koonfurta waddankan Sweden oo waxaan xuduud la leenahay waddanka Denmark bad yar baan oo dhaxaysa anaga iyo Copenhagen oo aan gaarin maartay 20 daqiiqo inta loo kala soconayo jaaliyad runtii fiican weeyaan jaaliyad aad isugu xidhan weeyaan waa jaaliyada qura ka jirta waqooyiga Yurub ama Yurub aan dhaanay dadka ajnabigu leeyahay qaaday saddexda jaa'isadood kala sareeya ay kamid tahay jaaliyada jaaisada ay bixiso magaalada Maalmo ay sanadkii mar bixiso oo aanu ku guuleysanay 2010kii anagoo maaragtay 2008 iyo 2008 ba lambar 2010kii ku guuleysanay 2012kii waxay ku guuleystay jaaliyadu jaaisada ugu weyn ee wadanka laga bixiyay ee la siiyo ururada samafalka iyo ururada maaragtay caadiga sida jaaliyadaha oo magaceeda loo yaqaano maartay jaaisada dhalinyarada ee sanadka oo ay bixiso boqortooyada Sweden 2013kiina waxaan ku guuleysanay jaaliyada sanadka ee gobolka marka ilaa 800 baan kula tartamay runtii way isku xidhan tahay bulshada maartay degan magaaladan Maalmo haddaan idinka warrano ama ha ahaato bulshada reer Soomaaliya ha ahaato ama bulshada kale maaragtay qoomiyada loo yaqaano Soomaalida ha ahaatee anigu ereygaas aan isticmaalaa sababtoo qoomiyadnimadu wax aad iyo aad u qaaliya in maamul la kala yeesho in wax la kala yeesho waxna la wada yeesho aad iyo aad bay muhiim tahay waxa ugu weyn ee la wada yeelanaya marka ugu horeysa waxa weeyaan in la wada noqdo nation good oo sida Yurub u sheegato Carab u sheegato Latin America u sheegato inaguna in wax Soomaali la yiraahdo wada sheegano waa shay waajiba laakiin in maamul la kala yeelano iyo dawlado iyo xuduudo iyo calano iyo ciidamo iyo sharciyo iyo maxkamado iyo xisbiyo inaan kala yeelanaana waxa aad iyo aad muhiim ah oo baahan qiimeynteeda weeyaan aniga aan ku dheeraanayn marka haddii aad tihiin dhamaantiinba xisbiga kulmiye madaxdiisa gobolada Denmark martida jaaliyada dhamaantiinba waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Maalmo aad iyo aadna waa idin salaamaya jaamac mahadsan yahay hadeer waxaan ku soo dhaweyn doonaa mikrofoonka sidoo kelmadiisa uu yiraahdo mas'uul culus oo halkan fadhiya waa gudoomiyaha اعتراف raadinta Somaliland محمد ku soo dhawo محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan horta kulay sharab maradeen maalmo joogno waxay waajibeen soo dhaweeyno hoggaanka xisbiga Sweden oo maanta martiino ah iyo maxaan ku raadaa dhammaan madaxda kale sare ee mas'uuliyiinta ka waddanka Sweden waxaya iyo idinkoo mudante aad u mudan taageerayaasha xisbiga iyo jaaliyada reer Soomaaliland maalmo degan dhamaantiin waxaad ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida ugu fiican qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaataan sida la sheegay tijaabo inoogu horeeyay gudoomiyihii Maalmo jaamac Ismaaciil waxa ay magaalada Maalmo kulay caan ku tahay isku duubnaanta iyo isku dhawaanta wax badan oo runtii lagu faanana way tahay
xisbigana wax badan bay koow ka taho markay noqoto xisbiga kulmiye waxay meelaha lagu tilmaansado ayay koow ka tahay isku xidhnaantiisa iyo tiirarka uu ku taagan yahay maanta iyo meelaha ugu fiican runtii sharaf bay noo tahay maanta in hogaankii noo yimaado dhammaystiran oo iyo rag iyo dumarba laamihii kala duwanaa oo dhammaystiran maanta inoogu yimaado si uu inoola dhiso intay noo dhiman maxaan ku dhahday inoo dhiirigeliyana markay noqoto qaran ahaan anigu xisbiga aan ka mid ahaado xubin xisbiga ka tirsan sidoo kale aan ahaado laakiin waxa ii dheer waxaan hayaa oon ku magacaabanahay maanta gudoomiyaha guddida ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Somaliland ee Sweden runtii guddidana halkan laga sameeyo maalmaynu hayn oo waxay koow ka ahayd oo iyadana faan kale inoo ah runtii inaynu ku faano oo saraw sheegneen maalmo laga sameeyay oo asaaskeedii aynu lahayn inagu hadaynu reer maalmo nahay iyo jaaliyadeena maalmo maanta sanad bay jirtaa guddidu wax fara badan oo fiican way qabatay runtii oo la taaban karo waxa ugu dambeysay dawaatii aan ku guuleysanay inaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Sweden geeyno wadankeeni oo ay soo arkeen wax badan oo runtii aad iyo meel fiican oo maraysaa oo rajo wanaagsan bay aad iyo aad u leedahay wax isbedel maanta sanadka gudihii waxaan ku yeelanay baarlamaanka Sweden asxaabaynu ku yeelanahay dhab ah oo xildhibaano ah oo qadiyada Somaliland aan maanta u baahnayn in qof Somaliland joogo haday igu joogan runtii waana dad wax weyn oo wanaagsan oo lagu farxi karo waxa sii jirta kulli isku duubnaantu xisbi kaliya ma aha waxay u baahan tahay arrinkaas waa arrin qarannimo waxaan u baahan dhamaan xisbiyada oo dhan ka tirsan isku tiirsanaadaan dhamaanteen in isku tiirsanaano midnimo jirto sidaad ogtihiin waa tii isbedel ba kulli yimid waxa la soo magacaabay hadda safiir cusub oo la soo magacaabay waa ahayd caawin in la joogo waxa si jooga kulli Xuseen baa jooga oo ku xigay safaaradda ka tirsan iyo rigiskaba waana maxaan ku dhahday waxa haboon marka oo jirta kulli oo fiican anigu carab ku dhufto waxa safaaradda Soomaalida waa la furay wax la furay 12 bisha intii la furay ka bacdina waxaad ogaataan isbedel weyn baa Sweden kulli ka soo baxay una baahan inaynu ka kordhino isku duubnaantii iyo maxaan ku dhahday dhinac inuu wada jeesano way kulli qadiyadan marka la ictiraaf raadinta wax dhamaanteen wada taabanaysa wax xisbi kaliya oo gaar ah maaha wax inay oo wax qarankii ka hadlaya de kulli toole rag baa inuu saynaana siday doonaysaa noqoto ama ay kulli iyaguna qiilkooda wataan inaguna waxaan wadanaa inuu noqono qaran kaligii taagan oo madax banaan oo Somaliland la yiraahdo iyaguna kulli taatu ka duwan bay ku doodaan waxaana dhacday maanta kulli diblomaasiyadda adduunka si kale u shaqeysaa ogtiin sidan maaha waxa laga furay safaaradii Stockholm waa laga furay Soomaalida waxaan safaaradii Soomaalida ay Stockholm waa la furay 12 bisha kulli juhdi fara badan iyo hawl badan baa soo kordhay in taa ogaataan oo u baahan in la xoojiyo runtii isku duubnaantii iyo in dhinac loo wada jeedo dadaalka la lebilaabo marka kulli hoggaankeeni maanta xisbi xaakimkana waa ku maqlaya waxaan u rajeynayaa xisbiyada kalena kulli tolaan xiriir wanaagsan naga dhaxeeya wadan iyo cidba sidaas si leeg baan ugu wada hadalay iyagana ay ka go'an tahay ogyihiina inay lama huraan tahay ninkii maanta doonaya qarnimada Soomaaliyeed meel ka soo saara in dhinac gacmaha is qabsado marka hadalka waxaan ku dheerayn maayo mar labaad baan soo dhaweynayaa dhamaantiin aad iyo aad u soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada dawalka iyo halka hawsha laga sii wado hal la dadaalana. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.